gabadhan meesha idinka muuqata waxaa la dhahaa Bilan Cusmaan waa gabar Soomaaliyeed marka gabadhan Soomaaliyeed nin Swedish ah oo gaal ah oo Yuhuud ah ka faa'iideystay hadda xogaa buu soo yara bandhigay iyo horta arintan cabsi waay sababtoo ah in badan oo arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo leh cadaanka iska ilaaliya macnaha mar walba hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan meeshay joogaanba waxay ku dhahay cadaanka iska ilaali hooyo dadkaas u maleynaysid maaha macnaha hooyooyinkeen ayaa waxaan inooga digay gabadhan meesha idinka muuqata waxaa la dhahaa Bilan Cusmaan waa gabar Soomaaliyeed marka gabadhan Soomaaliyeed nin Swedish ah oo gaal ah oo Yuhuud ah ka faa'iideystay gabadhan xiriir buu sameeyay waxayna isla socdeen 2 sano macnaha wuxuu yaqaanay sida gabdhaha la isku jeclaysiiyo oo macnaha wuxuu isticmaalay trick ah gabadha wax walba u sameey wax walba ku dhahdo haade meel walba u raac waqti badan la qaado macnaha intaas uu fahansanaa gabadhii markaa ninkan way jeclaatay ninkan target buu lahaa laakiinse oo macnaha ninkan wuxuu rabay gabadhan in uu banaanka keeno gabadhan ninkan wuxuu ka aaminsan yahay iyo sidoo ula dhaqmaayo isku mid maaha ninkani waa journalist oo wuxuu rabaa in uu gabadhan baaro waxyaabo badan banaanka keeno iyaduna waxa malaysaa nin cad oo doqon oo iska jecel oo macnaha bas iyadoo un raba marka ninkan 2 sano dhanba waxbuu raadinayay oo waxbuu ururinayay fiidiyaladan codadaadan oo waxyaabo badan oo personal gabadhan ka diyaariyo wuxuu rabaaba inuu documentary ahaan noo hor keeno uu daawadsiiyo hadda xogaa buu soo yara bandhigay manaa codadkeedu soo bandhigay iyadoo wajigeedu soo bandhigay iyadoo manaa ku dhadhagan buu soo yara bandhigay laakiin soo isagu sheegaayo wuxuu soo bandhigi doonaa waxaas iyo wax ka badan marka ninkan dad badan baa waxaan ku taageersan garan maayo sababta macal waxaan arkayay Soomaali Sweden joogta oo manaa af Swedish ku hadlaysa inay ku dhasheen iyo inay iyagoo yar tageen garan maaye aw dadka noocaasi way taageersanaayeen oo macnaha Twitterkiisa markuu wax soo dhigay dadka qaar u soo jawaabay Soomaaliya ku jirtay oo ku leh annaguna ku raacsanahay dadka Swedishkuna ay ku raacsan yihiin macnaha ninkan isagu sheegaayo inta uu banaanka keenay wuxuu leeyahay gabadhan sida ay banaan ku joogto iyo marka la dhax galo dhaqankeedu isku mid maaha oo macnaha wuxuu ka aaminsan yahay isagu soo u dhigayo argixisa ahaan ama qof sidoo meelaha ka sheega maaha qaab kale u dhaqma oo macnaha been dadka u sheega horta arintan dadka Sweden jooga wax badan ka fahansan oo macnaha ninku af Swedish buu ka hadlayaa waxyaabo qaar inaad fahmidaa macquula laakiin muhiimadu waxa weeyaan in ay gabdhaha Soomaalidu iska ilaaliyaan ajaanibta marka ajaanibta idin leeyahay aanu idin malihi cunsuri noqda dadkoo dhan waa siman yihiin laakiin walaalayaal qofkan aad la socotid ama aad guursanaysid waxa qurux badan in hebel loo garanayo marka walaalow ha aaminin nin walba isbaratiin ama restaurant ku kulma ama school isku barta ama banaanka isku barta hadii aad nin rabtid walaalay faarax Soomaali iska guurso horeba hooyooyinkeen noogu sheegan waxayna dhaheen cadaanka iska ilaaliya inta dhahdin faarax lagu baasto faarax ma taraayo faarax saan waay aad meelaha kale ku carartiin haddana hadhow markay dhacdo Soomaalida ku soo ordina marka aad ba ugu maagsan daawashada fiidiyoga daawateen hadii dhaqanka ilaawin fiidiyogan like saar siina share gare waa inuu fiidiyoga dambato ilaa